boqolaal iyo boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa degmada Qoyto oo 20 kiiloomitir kaga beegan waqooyiga magaalada Burco waxay kaga hortageen laba wiil oo dhalay Generaal Maxamed Caynaashe Guuleed kana mid ah xubnihii ugu horeeyay ay ka timid dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta iyo gooni isku taaga Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee kaga hortagay degmada Qoyto ayaa waxa ka muuqday wajiyadooda shucuur wadaniyeed kuwaas oo ku dhawaaqay hadallo soo dhaweyn gacaltooyo ah caleemo qoyan iyo gaadiid tiro badan waxaana ka mid ahaa hadaladoodii waxa runtii farxada in maanta gobolkii Togdheer oo dhan halkan qayboodii bulshada ay ku leeyihiin oo si midaysan ay u soo dhaweeyeen runtii waxaan rajaynayaa insha Allah in taariikhdu lagu xuso insha Allah Generaalka reer Togdheer ahaan ma Soomaaliland waxaan u sheegaynaa runtii labadan aqoon-yahan ay noo yimi ma aha laba nin oo runtii dalxiis ah waa laba nin oo muujinaya xaquuqdii aabayaashood waddanka u qabteen iyo halkii dheeraay oo soo mareen iyaga qura kamay tageen ilagana way naga tageen waana u ducaynaynaa inamadana waa soo dhaweeynaa waana dhiiri gelinaynaa xaqna way nagu leeyihiin waxaanu ka hornimay nin xaq ku leh gobolkan iyo ummadda dalka joogta labadaba gaar gobolkan u dhashay laakiin dalka Soomaaliland oo dhan xaq ku leh haddii ay aqbalayaan oo ogol yihiin Soomaaliya lafteeda xaq buu ku leeyahay halkan waxaanu nimi odayaashii ugu horeeyay ayaa sheegay oo ah labada aqoon-yahan ee waddanka inoogu yimi in badan naga maqnaa waxna u soo bartay ahna ehelkii sidaa la sheegay ama ay ahaydba jananku dhalay maanta waynu soo dhawaynaynaa nimankii ay dhaleen ilmo Caynaashe Guuleed Maxamed Caynaashe iyo Axmed Maxamed Caynaashe aan soo dhawaynaynaa soo dhawaadaan idin leenahay labada aqoon-yahan ee maanta halkan aynu ku soo dhawaynaa waxay u yimaadeen inay aqoonta iyo horumarka iyo maxay ahaydey amniga dalka Soomaaliland ka tira qayb ka qaataan dabcan shirar badan way gali doonaan waxaanay u taagan yihiin qarannimada Soomaaliland sidii ay u horumari lahaayeen bay maanta halkan u yimaadeen inay gobolkooda iyo dalkooda ka qayb qaataan Guuleed Generaal Maxamed Caynaashe Guuleed iyo Axmed Maxamed Caynaashe Guuleed oo ahaa labadii wiil oo dhalay Generaal Maxamed Caynaashe oo ka dareen celiyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa waxay yiraahdeen ugu faraxsanahay soo diirada soo dhaweyseen aad iyo aad ugu mahadsantiin waana astaan u gaaran u mareynaya soo dhaweynta fiican gobolka Togdheer waa mahadnaq soo dhaweynta wanaagsanaysan soo dhaweyseen soo dhaweyntiina waxaan runtii u arkaynaa gobolkoodii iyo degmadoodii dadkoodii u yimid u arkimayna qariibina waxaan u arkaynaa qadarin baan u arkaynaa wax lagaga celiyana runtii ma arko marka waxaan doonayaa inaan iraado marka hore aad iyo laxad ba u mahadsantiin soo baxa quruxda badan la soo baxdeen iyo soo dhaweyntan sharafta leh dadkiinan wanaagsan anaga hortimaadeen aan soo dhaweyseen marka insha Allah si fiican baan u wadaagi doonaa sheeko wayna wareysan doonaa intaasi kadibna waxaa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Burco isla markaana lagu soo wareejiyay jidadka albowlaha oo ah magaalada Burco Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Wanaag News magaalada Burco